haanhaata loo kala soocay mahuraanka la isku lisaayo hurdankiyo gabaara gurdayska halaq baa ku raad gadanaya isagaa hubka isugu dhiiba hanadada sidaa ku shidhaysta dabadeed hamuunta ku reeba isagaa habeen iyo maalin godobtiisa reer huwinaya had bashaar qabiilu tolaya xaajana raggii hoojin laanac odayaasha hoodh kuma qoysto caawbal waxaan doonaa inaynu ka yar hadalno sidee baynu uga badbaadin karaynaa dhaqankeenna iyo qiyamkeenna iyo karaamadeenna dimuqraadiyadda waayo waxa inaga dhintay wixii la odhan jiray qiyamkii bulshana haddii ay waxay ixtiraamto ay weydo bulshadaasi way ku dayso way dhimatay 20 sannadood aynu doonaynay inaynu dowladnimada dhisno waxa kalenu aasaynay oo dowladnimada dhankeeda kale ku aasaynay wixii aynu magaca iyo karaamadeenna ku lahayn oo ah madax dhaqameedkeennii maanta inta noolina dee jir ahaan bay u nool yihiin oo dee maskaxaan waynu u dilnayba waayo maalin kasta ninka kursiga doonaya unbaa kursiga ku kora markuu kursiga ku gaadhana iyagiibaa ama dib u xidhxidhaa ama dib u caayaa maalinta wuu u baahan yahayna isagunbaa soo istaadhaya deetana heer baynu gaadhnay inu cuqaasheennii sulaadiinteennii garaadadeennii ugaasyadeennii madax dhaqameed oo dhan maanta aynu ku nidhaahno waa tuug aynu magaca tuugba u bixinaba maalmaha ka mid ah ayaa dowladdii shariif ayaa waxay weydiiyeen nin caddaana kadibna wuxuu igu yidhi koofiyaddani ma model baa waayo dowladdii shariif oo dhan baa mar wada xidhnayd deetana waxaan ku yidhi model maahe waa dhaqanka suu yidhi what's it for laakiin maxay ku saabsantay waxaan ku yidhi taladeedii ayaa koofiyadda dhexdeeda iyo madaxiisa saaran marka qofka koofiyaddaa sitaa taa macnaheedu waxa weye mas-uuliyad badan buu hayaa maanta mas-uuliyaddaa su-aashu waxay tahay ma inoo hayaan madax dhaqameedkeennu inooma hayaan markaad astaantiisa aragtid baa markiiba niyaddaada waxaa ku soo dhacaya waa tuugii yaa sidaa ku yidhi siyaasigii uu shalay meesha geeyey baa dadkii haddana ku yidhi kaas uu yimaanlayo waa tuug matay xilligii aynu caqligeenna ka badbaadin lahayn dimuqraadiyadda iyadoo bilaa doorashaa waynu noolaan karaynaa laakiin haddii madax dhaqameedku inaga dhinto way adkaanaysaa somalilan siday ku badbaado waayo soomaalida kale oo dhan waxay kaga badbaaday ilaalinta odayadaas koofiyaddu maaha koofiyad madax iska saaran laakiin waa koofiyad xigmad loo saaray tiina waan dilnay halkan waxaan kusoo koobaynaa fariintannii gaabnada ahayd dimuqraadiyadda aan ka badbaadinno madax dhaqameedkeenna iyo nolosheennaba aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu